بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaa galabta halkan kusoo gunaanadmay shirkii labada maalmood u socday dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah madaxdoodii iyo mas'uuliyiintoodii communique ka soo baxayna waa leedin akhrin doona hadii alla yiraah shirkaasoo ahay kii labaad oo aan isugu nimaado waxaanan muxuu ahay doodo fiican iyo muxuu ahay isweydaarsi fiican dhacday wayna socod doontaa wada shaqaynta noocaana iyo hadii alla yiraahdo iyo shirarku way socod doonaan ilaahay idankiis taas waa midaas waxa ugu muhiimsan laakiin idin soo hor istaagnay oo maanta saxaabadu u wada taagana waxay tahay inaan ka dadka Soomaaliyeed iyo baash adduunyada caalamka inta baan u sheegno duruufaha abaarta dalka Soomaaliya ka jira muddo duruufaas ay taagnaayeen dadka Soomaaliyeed intii dal iyo dibad joogtaba baaqi far badan waa u jeedinay gurmadyo fiican waa sameeyeen waxna waa dhiman wili way taagan tahay wili muxuu ay abaartii maanta waxaan joognaa heer ay mudan tahay in si gaar ah taxadar loo siiyo abaartu sidoo hore ka duwan oo ah deegaanada qaar iyo dalka meelo ka mid ah ay abaartii inay macluul u gudubto oo dadkii xoolihii macluulay dhamaaday inay hadda macluul u gudubtay ku sii socotaa dadaalka hadda socdo ee dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed guud ahaantoodba ay u midaysiin wuxuu yahay sidii loo hor istaagi lahaa in macluul ay gaarto sidaas daraadeed dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dal iyo dibadba waxaan ugu baaqaynaa mar kale walaalayaal dadaalkaasi aan sii kordhino si aanay dadkeenu u gaarin stagekaas ama heerkaas macluusha ah ee dad badan ay nooga dhiman karaan maanta baaqeenu annagoo wada jirno waxaan ku midaysanahay oo codkeenu ku soo kor ugu qaadaynaa ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan in ay dadaalkaasi dowladda Soomaaliyeed oo dhan iyo qaybaheedii iyo shacabkeedii dalka gudihiisa joogay inaan u wada galno in aan ku dadaalno abaartu in aanay u gudbin meelahaas ayadoo dabcan deegaanada hadda si u kala daran yihiin loo kala hormari doono loona taxadiri doono sidoo kale baaqayga waxaan ku darayaa beesha caalamka oo aan leenahay iyadana maalin dhaweedna waa tii muxuu ahaay ninkii jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa u ahaa arrimaha muxuu bini'aadamnimada u qaabilsana halkan ugu soo booqday ayna soo saareen baaqi dowladduna ay soo saartay xukuumadduna ay soo saartay Soomaaliya mar kale annagoo wada jir codkeena waxaan ku kabaynaa beesha caalamka u sheegaynaa Soomaaliya waxay caalamka ka codsanaysaa in la hor istaago oo dadaal badan la geliyo duruufaha abaaraha ee deegaanada kala duwan ee dalka ka jiraay in aanay macluul u gudbin oo dad badan aanu nooga dhimanin waa yeeli karnaa dadku marka hadhow dambe waxba kama qaban karno laakiin hadda weli dadku waa heerkaas ma gaarin abaartu waa ku sii socotaa deegaanada qaarna waa sii kala deerin qaar baa aad looga dayrinaya marka sidaas daraadeed waxaan codsanaynaa caalamka iyo maxaan ku yiraahdaa dadka Soomaaliyeed intaba inaan maankeena iyo maskaxdeena gelino in aan taxadigaas ama challenge-gaas ummadda Soomaaliyeed haysto si wada jir ah annagoo u wada jirna aan uga hortagno oo aan u hor istaagno aan rajaynaa in beesha caalamka iyo shacabka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan isku si aan u wada qaadan doono arrintaas oo lagu jawaabi doono ilaahay idankiis taas waxaan rabaa marka inaan intaas ku soo koobo waxaan rabaa inaan hal qodob oo hal fariin kale oo gaar aan ku darsado oo ah dagaalka muxuu ahaay lagula jiro kooxda nabadiidka ee argagixisada dagaalkaasi meel fiican u marayaa waa dagaal waa dadnimadii iyo xorriyaddii iyo dhowristii daafici diinteena ayaan dagaalkaas ugu jiraa dadka Soomaaliyeed oo dhan ay ugu jiraan maanta dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dareenkaas ku wada jiro waa bogaadinaynaa waana dhiirigelinaynaa in lagu sii socdo dowladana wax ay kari karto iyo wax ay qaban karto ka reebanaysa mala maanta in shacabka muxuu ahaay nimanka nabadiidka dalka laga xoreeyo aan ka hortagno macluul dalkeenu inaanu gaarin markaan leenaano waxa ugu horeyso inaan shabaab ka xoreyno si loo gaaro dadkii meelaha macluusha ay ugu dhimanayaan waa meelaha muxuu ahaay nimanka nabadiidka ay ka talinayaan dadkeena si aan macluusha uga badbaadino aan ka xoreyno
nimanka si aan u gaari karno oo aan ugu gey karno wixii ay ku badbaadi lahaayeen. marka dagaalka nimankaasi waa sidaas. fariin qayb labaad oo fariintaas amniga ku saabsan oo ku daray waxay tahay dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan waxaan la socodsiinaynaa ama uga digaynaa meesha shabaab jooga inay ka fogaadaan. nin kastoo shabaaba waa hadaf, ciidan kastoo shabaaba waa hadaf, qof kastoo shabaaba waa hadaf. sida ay dadka Soomaaliyeed hadaf uga dhigteen ay u dilayaan ayaguna waa hadaf. agtooda ha ku dhaawacmin, hana ku dhimanin, ka fogaaw, ka fogaaw. waa la duqaynaa, waa lala diriraa, waa lagu duulaa, waa laga dul degaa, wax walba oo dagaal oo ku furan yahay shabaab ku furan. shacabka Soomaaliyeed sharafta leh waxaan ka codsanaynaa ha ka fogaadaano meesha uu shabaab jooga. maxkamadahooda yaan la tegin beenbeenta ah. meelaha dadaan wacyi gelinaynaayo waa wacdinaynaa ay leeyihin wacdigooda waa wacdi khaldan ayaan loo tegin. meelaha ay joogaan yaan laga dhowaanin. meesha uu yimaado tartiib ha looga dhaqaaqo. qofkii afduubtaan afduub ku haystaan waa meeshiisa, garaawshiyuu leeyahay, ka fogow. ayadana waa talo kale, fariin kale oo shacabka Soomaaliyeed aan gaarsiinayno haddii alla yidhaahdo. dagaalka shabaab ha ku dhimanin adigoo oo aan ayaga ka mid ahayn, oona ognahayn dadka Soomaaliyeed inay shabaab ka mid ahayn, oo ay ku mabda ahayn, ay ku rabitaan ahayn, ay ku magaciisa ahayn. dadka Soomaaliyeedow walaalayaal ka fogaada shabaab. aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.